Barcelona oo isku diraysa 3 xidig oo waaweyn suuqa Janaayo. Shabakada Ingiriiska ee Athletic ayaa daaha ka rogtay in Barcelona ay qorsheynayso isbedelo waaweyn oo ku yimaada qaab dhismeedka kooxda xagaaga soo socda, iyadoo 3 magac oo waaweyn ay ku jiraan kuwa laga yaabo inay baxaan. Wararka ayaa sheegaya in Andres Christensen, Ronaldo Araujo iyo Marc Casado ay yihiin ciyaartooyda laga yaabo inay kooxda ka tagaan dhamaadka xilli ciyaareedkan. Christensen heshiiskiisu wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, mana jiraan wax wada hadal ah oo ku saabsan heshiis cusboonaysiin. Taas ayaa ka dhigaysa inuu ku dhawaado bixitaan, maadaama Barcelona ay u baahan tahay inay hoos u dhigto mushaarka guud ee kooxda oo ay dib u dhisto qadka dhexe ee difaaca. Dhanka Araujo wuxuu la dhibaatoonayaa waqti adag kadib hoos u dhac muuqda oo ku yimid bandhigiisa iyo qaladaad saameyn leh oo uu galay kulamo waaweyn oo dhawaan dhacay, iyadoo xiise sii kordhaya oo uga imaanayo kooxaha Premier League. Waxaa sidoo kale la sheegay in Marc Casado uu ka fikirayo inuu raadsado koox cusub oo ah meel ka baxsan Camp Nou, maadaama uu helayo daqiiqado aad u kooban oo uu siiyo tababare Hans Flick. Tani waxay keeni kartaa in Barcelona ay ogolaato bixitaankiisa si ay dhaqaale uga helaan una furaan boos ciyaartooy cusub. Dhinaca kale, Barcelona oo shaacisay in De Jong uu seegayo kulanka Atletico Madrid. Barcelona ayaa xaqiijisay in Frankie De Jong uusan ka qayb geli doonin kulanka ay caawa la ciyaarayaan Atletico Madrid sababo la xiriira inuu xanuunsan yahay. Xidigga qadka dhexe ee Barcelona De Jong ayaa seegay kulankii Alaves sababo la xiriira arrimo shakhsiyeed, halka kulankii ka horeeyay ee Athletic Club uu ku maqnaa ganaax. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka tahay barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.